inta laga bilaabo ilaa iyo halkaas waa dhulbeereedkeena aniga ayaa iska leh taasi waa loo wada jeedaa oo cid ay ka qarsoon tahay ma lahan waan fahamnay colad bal nookaadi waan u jeednaa dhulkana annagu waan kala garanaynaa ma fahamtay ma nihin dad dhulkan garan waayo oo meel kale ka yimid ee balkaadi aan si fiican u aragno aan ka indha buuxsan waa tana oo arka halka teendooyinka gurguura laga dhisay arka beerteena ayay kaabiga ku haysaa soo uma jeedaan waxaani ayaa ka socda deegaankeena in dadka dhulkooda iyo beerahooda lagu xadgudbo wax qalad ah soo maahan miyaa loo dulqaadan karaa arrinkan wax loo dulqaadan kara ma aan runtii waan garanay colad si fiican baan u garannay haddii aad tihiin odayaasha golaha ciidanka booliska wax ka qabta dhulbeereedkeena dulmiga lagu hayo waa ku fahanne colaadow soomaalidu waxay tidhaahdaa ilaahu eexna ha nooga tegin aragti gaabnina ha nugu cadaabin ma fahamtay waxaa kaloo la yidhaahdo gari ilaahay bay taqaan meelay joogtaba ma fahamtay maxaad ka waddaa oday warsame soo sheeg waxaad u jeeddo gari alle ayay taqaannaa dhulbeereedkii annaga lahayn ayaynu ka hadlaynaa wax kale aan ka hadlayo ma lahan oday warsame sidaas ogow waan ogahay colaad in aad ka hadlayso beerta iyo dhulka ku haraaraysan waayahay waxaan ku qanacno inoo sheeg annaga ayaa soo dacwoonay waxaan xaq u leenahay dhulkeenna iyo in aan helno dhulbeereedkeenna waa in dadkaanna naga kiciyo waayahay si fiican baan kuugu gartay ee colaad i dhegayso annagu markaan eegnay meesha ay teendhooyinku ka dhisan yihiin iyo beertiinnu halka ay ku taallo dhulka teendhooyinka laga dhisay way ka baxsan yihiin xuduudda beertiinna ma garatay intaa colad haa waan gartay taasi laakiin waxaan kugu waafaqsanahay in ay xadgudub ku tahay dhulka iyo ceelka biyaha deegaanka isku filan adeer ma waxaad ka mid tahay dadka halkan deggan haa waxaan ka mid ahay dadka halkan deggan waxaan idiin sheegayaa in deegaankaas kaga guurtaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh halkan laydinkama rabo ma wax cusub ayaa jira baryahanba waan deganen deegaanka annaguye sida wax u jiraan bal nooga warrama waanan aragnaa inay wal noo hayno anigu baryahanba deegaanka waanu degelin ma haddaad nagu soo baraarugteen adeer hadal badan looma baahno waa inaad halkan iskaga guurtaan ood ku laabataan halkaad ka timaadeen haddaan runta kuu sheego annagoo deegaanku aan ka nimid kuma laaban karno sababo jira maxaydaan ugu laaban karin deegaankiinna aad ka timaadeen adeer tuuladii aanu ka nimid argagixiso ayaa la wareegtay waana taas sababta aan ugu laaban karin tuuladii aanu ka nimid oo halka aan ugu nagaannay meeshan inay dad leeyihiin soo ma ogid waad iska degteenuun miyaa dhulka aad ayaan u kala naqaannaa meeshaanna meel nagu cusub ma aha oo waa meel aan horay u naqaan adeer ee tartiib adugu maxaad ka waddaa horaan u naqaanay dhulkan adeer waxaad waddaa afkaaga fudhilkaagaan tiriye mahmaadii ahayd haddaan kuu faahfaahiyo warka annaga beesheenna ama beesha aan ka soo jeedo muddo qarniyaalah ayaannu ceelkan biyaha ka cabbaynay oo aannu ceelkan xoolahaynu ka cabbayeen maaha meeshaan meel nagu cusub oo hadda aanu iska nimid ama ku soo booddo ku nimid sida dad kale isku fil ay xaq ugu leeyihiin ayaa annaguna xaq ugu leenahay meesha tan ii kaadiya marka akhyaaray wax yar aan ismaqalno sheekh cilmi iyo kabtan bilaalow anigu waxaan soo jeedinayaa in aan dib ugu laabanno magaaladeenni isku filan taa ayaan anigu soo jeedinayaa waana aragtidayda maxay tahay oday warsame dib u laabashada aad ka hadlaysid aaway gartii aan idiin soo wadannay alla maanta suuqa waa la buuxaa bishaaroy maxaa jira haa abaay nasrooy waa iska sidaani gabdhihii dhan adiga waxaa moodaa in galabtii marar kuugu dambaysay in galabtii aa bannaanka soo baxdo mar weliba sidaan waay suuqa ma arki miyaadi haa waa runtaa alla waatan filsan alla sug anaa u yeeraayo filsaney kaala baayo alla waa bishaaro iyo nasro ii warrama see tihiin waan fiicannahay abaayo filsan adiga xaaladaada ka waran walaashay waan ladanahay aniguna aad baad u mahadsan tihiin soo dhowaada maanta waxaan suuqa u nimid si aan u wada kulanno oo aan wax isula meel dhigno oo aan wada tashi u yeelanno ileen waataan ku ballannay inaan qorshe samaynayne waan ku ballansanayn arrinkaas in aan kulan ka wada yeelanno oo aan meel wada dhigno saddexdeennaba abaayoy waa in dadka magaalada ku qancinnaa sidii aan dib u habeen ugu samayn lahayn iskuulka magaalada rajo badan ayaan ku qabaa in qof kasta oo soo dhowayn doono arrintan aynu ku farxi doonaan waayo waa arrin loo baahan yahay haa waa run qof kasta carruurtiisa inay wax u bartaan wuu doonayaa ilaan waalidiintuba waa inala mid oo sida aan annagu u doonayno carruurta deegaankeenna ayuu qof walbana u doonayaa dhismaha iskuulka
haa walaalayaalo wayba siin haye hee fikrad eedan fayla haye hob macquul ata isagna ii rahaasan noo sheeg walaale waa wax aanba doonayno fikir in la keeno oo maskaxda laga shaqaysiiyo haa baay nasro waxaa jira dhismo iskuul ahaan jiray oo yaraantayda ah xasuusto kuna yaala magaalada dhismahaas iskuulka ayaan u malaynayaa in dhaqsi dib u dhis loogu samayn karo waayo waa meel iskuul hore ugu yaali jiray waa arrin wanaagsan fikirkaas aad soo jeedisay bishaaro waxaan idin sheegayaa inaan si dhaqsi ah wax u qaban karno iyadoo aan fasax looga baahnayn goolaha deegaanka isku filan qarashka annaga ayaa isku qabna wax lacag ah oo looga baahan yahay ma jirto dadka deegaanka haa baay nasrooy waa hadal wanaagsan soo jeedintaadana waan kugu raacsanahay aniga dhegaysta walaalayaalow waa in aan taxaddar muujinnaa si aan looga caraysiin odayaasha iyo hoggaanka bulshada deegaankeenna ku nool ee isku filan war annaga ciidanka caraysiin mayno oo wax aan samaynayno waa wax lagu farxi doono haddii ay noo suura gasho oo aan ku guulaysano hawshaan maya mataawiyow inti walba ninku kooyo qorshigaasaytii oo una ka dhisaan iskuulka waaba howl unanka fududaayana maamulka golo deegaanka waal wanaagsan oo waan ha kordhiinyanagadaas oo qof kastana ambaahanyi waana ka faraxow walaalayaalow waa si hoose inaan u wadno qorshahan intuu bilowga yahay dhismo la dayactiraayo kolay ma qarsoomaayo laakiin gadaal haddii laga ogaado wax dhibaato ah ma lahan haa waa sax sidaas aynu samayno abaayo suga aan wax idiin sheego galabta dalab cusub oo kalluun ah ayaan ka sugaynaa ama nooga imaanaya bannaanka deegaanka isku filan tuulooyinka ku hareeraysan mid ka mida weliba waa buureero homalaykilikugadow meel eed unku fog deegaanka isku filan tan kale kalluunkii waa qaali oo lama goyn karo qiimihiisa dhibaatadaasna waa ay jirtaa haddana waxaa laga keenayaa meel fog oo aan ahayn deegaankeenna isku filan bal ka warrama arrinkaas waaba dhawaatuhu hoba malaayki un niiqaalowa oo una gooyi waayna beesida unuka gadadaani haa walaal wuu qaaliyoobay kalluunkii dhibkaasna waa uu jiraa laakiin filsaney maxay tahay sababta aad kalluunka ugu soo gadan weyday deegaanka isku filan webiga jiinkiisa waxaad ka heli lahayd qof maalin kasta kalluunka kuugu keena meheradaadii ganacsiga adoonba meelba aadin tahliilow ii soo dhiib alwaaxaas doonida dul saaran iyo masaabiirta qasaca ku jira waa kuwaas masaabiirta ma u jeeddaa waayah waa diyaar waan kuu soo dhiibayaa walaal diiriye kuwaan miyaa rabtaana ii sheeg inta kuwa yidhiiriisaa ku jira kuwaan waaweynkana waa kan kuway kuu soo dhiibaan haa saaxib kuwaas ayaan u baahanahay waayo doonta dhinaca hoose ee biyaha dhex gelayso waxay u baahan tahay in si fiican loo adkeeyo niyow waa runtaa meeshu waa biyo layskuma hadlayn karo hoo diiriye waa kuwaan masaabiirtii iyo alwaaxdii aniga dhinacaas ayaan doonta ka adkaynayaa waayo biyaha dee nagu soo galaan xilli aan dhex marayno dhibkeeday leedahay mahadsani tahliil alxamdulilaah hadda doonta dayactirkeeda gabagaba ayay noo maraysaa maasha allah adiga ayaa ila fududeeyey hawshaan oo ila qabtay waadna ku mahadsan tahay diiriyow haddaad adiga ahaan lahayn waan ku daali lahaa wakhti badan waa iga qaadan lahayd laakiin waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay niyo adigaa mudan laakiin waa waajib inaan iscaawinno oo aan wax isla qabanno ileen ma kala maaranno saaxib wah warniyow cajiib baa taha wallaah qofka hal abuurka leh horuu ka fahmayaa halkudhigga suugaanta maasha allah diiriye tahliilow horta ma ogtahay inaan aabbahaa garan jiray yah aabbay maa taqaannaa war diiriye say wax wadaaniyo aabbay maa taqaani haa waan aqaanay tahliil halkan webiga jiinkiisa ayaan ku soo booqan jiray marka uu webiga ka kalluumaysan jiray aad ayaannu u garanayaa aabbaha warniyow maba ogin inaad aabbihii taqaannee maasha allah warniyow si fiican baan noo taqaannaaye kalluun inuu waxtar leeyahay ma ogin webigan dhinac ka dudnaaye kalluunku wuxuu leeyahay nafaqo aan la koobi karine dadka yaguna kama fakeraan inay kol un jillaabtaane allow kol un garaansii dadka kuwan kalluunka garane maasha allah kalluunkii ayaadba gabay ka tirinaysaa niyahow diiriye waa gabay cajiib ah waan u riyaaqay runtii aniga nin cajiib ah ayaa tahay saaxiibow waaba la yaabanaya sida ugu dhaqsiyaha badan ee aad isla markiiba aad gabay uga tirisay kalluunka warniyo nin loo geli kara mahid kalluunku waa inoo kayd kol walbaan jilaaban karnaaye kaalayoo ka faa'idaysta dadka isku filan ku noolow maasha allah diiriye noolow saaxiib nin caadi ah ma tihid runtii waan kuu riyaaqa wallaah waad iga yaabisay teeda kale maanta shaqadiiba waan ilaaba ka waran goor aan dhammeeyey maaweeladaada macaan darteed ayaan u ilaabayba oo shaqadii anuu dhameey unbaas arkay kalluunku waa inoo kayd borotiin baa ku jiro caafimaadku kaabay kaalay oo wada jilaabta salaamu calaykum walaalayaal wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waah waxaasaa hees ah waa hees baraarujin ah
waanba yaabnaa waxaan leeyahay heestaan macanyaa qaadaya in leen waaba abwaan diiriye maasha allah mahadsanid nasro adigaa mudan diiriye nasroy anigaaba hortaa yaabay waa abwaan cajiib ah diiriye waan ka helay suugaantiisa quruxda badan iyo heesihiisa macaanba nin caadiya maaha ninkan tahliilow iga qabo tarmuuskan iyo koobabkan bal keen nasroy keen waa maasantahay keen idinkaa mudan walaalahay waa lisku leeyahay waa iska caadi heestiinana waa niiga qasay nasro waxba nagama qasin ee halkan soo fadhiiso walaashay ee bel noo waran adiga annaga beryahan waxaan ku mashquulsanayn dayactirka doonta tahliil ee maxaa war oo ka jira deegaanka isku filan kolay waad og tihiin arrinta dadka barkacayaasha in reer sharmaarke ee dhaheen ha noogu guureen beerteenna agagaarkeeda dood ayaa ka taagan waan garanay tan kale gabdhaheenna deegaanka qaar ka mid ah waxaan isla gaarnay inaan dayac tirno iskuul ay carruurta wax ku bartaan waana noo socdaa qorshahaasi waayahay waan garannay haye golaha deegaanka ma og yihiin dhismaha iskuulkan aad dhisaysaan mise waa qorshe idinka idin gaar ah ii sheega bal midaas walaalow ma oga golaha deegaanka waayo qarshaadka annaga ayaa isku aruurinayna dhaqaalena kama rabno marka waa arrin annaga qaas noo ah waayahay waan gartay taas ayaan rabay inaan ogaado waxa aad gaar u wadatiin inay tahay hawshan iyo in kale oo ay golaha deegaanka idinla og yihiin dhib ma lahan laakiin waa hawl bulshada waxtar u leh dhismaha iskuulkan waana wax loo baahan yahay inaad ku dadaashaanna waa muhiim waad ku garab istaagaynaa mahadsanid tahliil iskuulka dhismihiisa waa mid loo baahan yahay oo fursad u ah dadweynaha ku nool magaalada isku filan waana mid bulshada magaalada midaynaysa taasi waan kugu raacsanahay waad mahadsan tahay diiriye waa runtaa waa mid dan u ah dadka oo dhan dhismaha iskuulka arrinta colaadda waa laga fiican yahay run ahaantii waxaan ka xumahay colaadda ka sii daraysa ee bulshada aan deriska nahay waa wax laga xumaado oo aan wanaagsanayn waa run waa wax laga fiican yahay colaadda soo laalaabanayso ee dadka deriska ah waxaa wanaagsan in laga waantoobo nabad wax ka wanaagsan waa la waayey nasroy walaale aniga maxaan idin qabtaa oo aan idinka caawiyaa ka tahliil ahaan diyaar ayaan u ahay wax kastoo aad iiga baahan tihiin waana idiin samaynayaa ii soo sheega keliya wixii garabkayga ah waa diyaar waa idiin samaynayaa walaalayaal aniga waxaan inka codsanayaa in dadkan barakacayaasha ah ee deggan ceelka biyaha wax laga qabto arrintooda sida ugu dhaqsiyaha badan idinka ah hoggaankii ugu sarreeyey deegaankan colaadow tartiib horta tartiib isdeji wax walbo xal ayay leeyihiin inaa isdejisaan kaa rabaa marka hore kabtan bilaalow maxaa xal ah oo aad haysaa bal noo sheeg saaxiibayaalow arrinta sidaad moodaysaan ma aha way ka duwan tahay weliba aadoo weyn wayna ka culus tahay sidaad wax mooddaan yaanay qiiro idin qaadin waxa aan ka fakarayno waa nabadqabka dadka aannu mas-uulka ka nahay dhammaantood iyo bulshooyinka naladariska ah taas waa inaan fahnaa marka hore oo mas-uuliyad inayna saaran tahay aan ku xisaabtannaa kabtan bilaalo maxaad ka waddaa arrinkaa sida aad wax moodaysaan ma ahan bal noo caddeey waxa aad ka waddid arrinka dad mas-uuliyiin ah ayaynu nahay dhammaanteen ku xisaabtama waxaa loo baahan yahay in aan ka fiirsano tallaabo kasta oo aan qaadayno dadka iyo deegaankuba annaga ayaa mas-uul ka ah ilaah ka sukow waxaa noogala baahan yahay si taxaddar leh inaan u wajahno amuuraha noocan oo kale ah hadda ogow tallaabo kastoo aan qaadno wax ayaa ka dhalanaya hadhow innaga ayay nagu soo laaban kartaa haddii dhib uu yimaado innagaa mas-uuliyadda nagu dhacaysaa haddii dhibaato ay timaado dadkeenna ayaa barakacaya argagixiso ayaa naga faa'iidaysanaysa amnigii ayaa meesha ka baxaya waa la qaxayaa waa la dhimanayaa waa la dhaawacmayaa waa la gaajoonayaa hadhow eeddaas yaa qaadan doona anigoo ah kabtan bilaal waxaa mas-uuliyad ay iga saaran tahay in amniga aan ka shaqeeyo habeen iyo maalin ayaan u taaganahay in dadka reer isku filan iyo hareerahoodaba ammaan ay u noqoto ammaan ay ku seexdaan dadka ammaan ay ku ganacsadaan ammaan ay wax ku bartaan waxaad fahantaa sharma arkow waxa aan aniga ka hadlayo ma aha waxa aad haatan adiga u jeeddo waxaan ka hadlayo waxay tahay colaadda iyo dhibka ay leedahay colaadda iyo argagixisada siday u soo korgambato isku dirka bulshada iyo dhibaato kasta oo imaan karta maanta waxaan ka hadlaynaa anigii adiga miiskan dushiisa laakiin haddii colaad ay timaado waxaan ku wada hadli doonnaa telefoon oo keliya xitaa way nagu adkaan kartaa inaan hal meel isugu imaano warka waxaa wanaagsan in doodda laga rogo
oo la caddeeyo bilaalow biyodhaca warkaaga noo sheeg fadlan waxaa loo baahan yahay waa in la helo xal aan iskaga fogeyn karno dhibaatooyinka dadka barakacayaasha ah ee masaakiinta arrintan waa mid innagoo dhanna wada qusaysa oo mas-uuliyad wadareed ah waxaa loo baahan yahay idinkuguna baaqaya in laga digtoonaado arrimahan oo kale waayo wax sahlan ma aha waxa aan aad uga walaacsanahay in colaad hor leh ay dhex marto annaga iyo bulshada deriskana la ah taasi oo horseedi karta burbur hor leh inay wajahaan dadka reer isku filan oo hadda xaalado adag wajahaya waana arrin murugadeeda leh waxa aan ka baqayo oo aan idinkaga digayo horta fahma waa arrintaasi colaad xal ma aha in la soo jeedana khayr ma aha colaad waxa ay tahay waxaa la weydiiyaa qofka waaya aragga ah haddii aan nahay ciidanka booliiska marnaba shaqadeena qayb kama aha inaan colaad ka qayb qaadano deminta colaadda walaalaynta dadka iyo in dadka ay horumar gaaraan ayaan ka shaqaynaynaa saldhiggan isku filan waxaan u dhisaynaa waxa ay tahay oo keliya in dadka lagu kala badbaadiyo sharciga loo hoggaansamo oo dadkii deegaanka yimid ee dhibaatooyinka ay keeneenna aan lagu xadgudbin kuwii deegaanka lahaana aan lagu xadgudbin sidaan horey kuugu sheegay dadkan waxaa soo barakiciyey caqabado badan deegaankoodii argagixiso ayaa dhibaato ka wada kuma noolaan karaan halkan ayay soo miciinbideen maanta meeshii annaga aan uga kici lahayn meeshii aan fadhinay oo sariiraheennii ay ku seexan lahaayeen bustayaasheenii ay huwan lahaayeen haddii innagu aan nidhaahdo biyahaan idinka jaranaynaa beeraheenna nooga baxa suuqeenna kuma ganacsan kartaan carruurtiinna iskuulaadka nooma dhigan karaan maxaa soo kordhaya islaamnimada aan eegno walaalnimada aan eegno soomaalinimada aan eegno nabadda iyo jacaylka walaaltinimada aan eegno taasi waa waxa ugu fiican ee ugu macquulsan ee ummad ay ku wada dhaqmi karto bilaalow wax dhibaato ah oo la wajahayaa ma jiraan dadka barakacayaasha ahna uma dul qaadan karaan run iyo ilkaba waa la caddeeyaa marka in layska aamuso xal uma arko anigu run ahaantii walaalayaalow mar kalaan idinku celinaya arrinka sida aad moodaysaan ma aha waa ay ka qoto dheer tahay colaadna wax laguma wajaho ee si deggan ayaan wax ku xallin karnaa ee aan isdejino inta dhiig uusan daadan ama dhibaato kale aanan ka shaqaynin hadhowna aysan annaga nagu soo laaban sharma arkow waan ku siinayaa hadalka anigu waxa aan ka hadlayo ma aha wax fudud colaad sideedaba dhibaatay leedahay soomaalidu horey waxay ugu mahmahday nabadaa naas la nuuga leh qofkii mahmaadaasi keenayna waa qof maskaxdiisa aad iyo aad uga shaqaysiiyey haddaba maanta annaga nabaddaas aan ka shaqayno wax colaad ahna yaysan dhicin hana isdhihina kabtan bilaal lacag ayuu soo qaatay oo qolada hadda timid ee dadkan nagu soo barakacay ayuu lacag ka soo qaatay waxaad ogaataa in bani'aadamnimada aan fiirinayo waxaad ogaataa in soomaalinimada aan fiirinayo waxaad ogaataa inaan ogahay argagixisada iyo deegaankii ay ku habsadaan dhibaatada ay ummadda u geysanayaan iyo dadkan sida ay uga soo baxsadeen waxaan kuu sheegayaa in khayraadka isku filan aanu ku filnayn dadka reer isku filan maxaan dad kale u qabanaa annaga teeni la circirayne sidaa darteed xero cusub oo barakacayaal ah anigu xal uma arko haba yaraatee waxaad ogaataa sharma arkow dadkan deegaanadooda kama soo barakaceen haddii ay ku haysan lahaayeen nabad dan ayaana meesha keentay waa in loogu garaabo taasi tan kale aan kuu sheego annaga oo deganaan wax ku xallin karna maxaa buuq iyo colaadna gelinaya xilligan arrinta waa in aan dhinacyo badan ka eegnaa inta aanan go'aanada qaadan sharmaarkow deegaan waxaan nahay hadda soo kabsanaya haddii culays aanan xamili karayn nala soo dul saaranna dhibaatooyin ayay leedahay waa inaynu si kastaba ku wajahnaa dadkan barakacayaasha ah ee nagu soo qulqulaya mar walba oo aannu meeshoodii ku celinaa horta tale alle ayay u taalaa sharmaarkow annagana dadaal ayaa nogala baahan yahay maadaama aan nahay hormuudkii deegaanka isku filan indhaha oo dhan innaga ayay nagu soo wada jeedaan ma aha inaan dadkeena colaad iyo dagaal ku hoggaamino xilligan hadda oo aan xaalkeena wada ogsoonnahay oo aan ku jirno xilli soo kabasho xilligan macquul ma kula tahay in dagaal aan geli karno ama dad masaakiinah oo daruufo u soo barakacay aan deegaanadooda inaan ku celinno ku fakarno warniyow ilaa hadda waxaan ku qanco kaama hayo anigu ra'yigaygana ma qaadanaysid war annagu ma dul qaadan karno dadkan barakacayaasha ah ee aan la garanayn meel ay ka yimaadeen waaba nagu soo ballaadhanayaan berritole deegaankayaga aan leennahay bay nala sheeganayaan oo ay rabaan in ay naga qaataan taasi ma dhacayso horta niyaddaada ka saar oo deegaanada waa la kala leeyahay sida taariikhda ku xusan waana lays wada yaqaanaa sharma arkow qof kasta deegaankiisa iyo dadkiisa kama dhumayaan fadlan wax ila fahma meesha aan wax ka fiirinayo ila fiiriya waxaan ka shaqaynayaa waa inaan dhibaato ka hor tagno oo aysan imaanin in dadka iyo deegaankaba dhibaato ay wajahaan akhyaaray waan idin dhegaysanayey maanta oo dhan
dooddiinnuna way sii fogaanaysaa marba marka ka dambaysa marka soomaalidu waxay horay ugu mahmaaday sidee xeego loo xagtaa ilkana u nabad galaan ma i garateen marka akhyaaray waxaa weeye aniga waxaa iila muuqataa aniga ka oday ahaan tala ayaan soo jeedinayaa taladaasna waxaan isleeyahay xal ayay noqon kartaa goormay xal noqonaysaa waa haddii la isku waafaqo taladaas ma i fahamteen aad baa u mahadsantihiin anigu ka warsamo ahaan waxaan soo jeedinayaa in sheekadan oo dhan loo baahan yahay in lagu wajaho xal lagu madaysan yahay oo aanu qofba meel uusan u qaylin oo aan aaraa kala duwan la soo gelin oo aan khilaaf la sii magaranaysaa kordhinnin taas ayaa noqon karta xalka kama dambaysta ah oo arrintan salka u dhigi doonta doodduna way inoo xidhan tahay hadda waadna mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa xalkaas inaan wada gaari doonno midnimada aan ku gaari doonno arrintaanna sidaas aan ku rogayn doonno haddii alla idmo waryaa colaadoo inamara iska baxnaniya hagaag aabbo ina kaxey waa diyaar waryaadheen arrinta haddii aad xal u weydeen annaga ayaa xalka keenayna oo haba yaraatee wax isdabajiid ah waxay tarayaan ma laha markaa niyo saasaan isku ognahay nooli kulanteen haa waa sax wax kastooo ku saabsan annaga ayay inoo taallaa